ballaaran oo ay maanta isugu yimaadeen waxgaradka iyo aqoon-yahanka gobolka Sool ayaa laga hadlayay dhibaatadii dhawaan soo gaadhay shirkadda Telesom taas oo laga gubay xarumo ku yaala Hurufadhi iyo Banyaal ayna gubeen ciidamo maamulka Khaatumo xilli sii horeysayna qalab shirkadani ay leedahay ka qaateen deegaanka Yagoori ee gobolka Sool waxgaradka gobolka Sool ayaa waxa ay cambaareen falkaasi guracan ay ku qaadeen ciidamada maamulka Khaatumo shirkadda Telesom kulankan way soo abaabuleen maamulka shirkadda Telesom ee gobolka Sool kaas oo ay ku soo bandhigeen khasaarihii loo geystay shirkadooda bulshaduna ay si weyn uga xumaatay khasaaraha soo gaaray shirkadda Telesom ayaa waxa saami badan ku leh shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn qaarkoodna ay kamid yihiin aasaasiyaasha shirkadaasi dhidibada u taagay waxaana dadweynuhu hadal hayaan waxa hadda ku soo beegay in ay bartilmaameed ka dhigtaan maamulka Khaatumo taas oo wax kasta wad hadal lagu dhameyn karayay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أرتب عن إله كعبسنا سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء الإسلام يستقيم بيننا هاي هل كان شركة شرائد مركا تأكد ويا رمضان بنكشرنا بشيء خير كلاهيد إن نكود ذاله خير إن شاء الله تعالى إن نكود ذاله ونكاف قنيميسون وفرصة عمرك إنه صوم مرتويين توبت كان يو مارتي إن عباداتنا إنه بدينا إن شاء الله تعالى تكلوا ولا ليال أرنتن إن سوسعتي إلا بشي شناد إلا بشي لحد نكشر رؤياه وحيلا اللوجستي شركة لها تلسوم يو سومتل أو يكمل تهيئين مارتي إن قلب إن لقد عي تاور هذا ينتينوني كمركو هراء كدبنا يكون حكتي تلعب الله بعضها إن للجوبيبة runtii arintaas ka culimo ahaan waxaan u aragnaa arin yani falfal xun oo burcadnimo ah oo runtii aanu fiicnaan qof islaam inuu maartay hanti qof islaam leeyahay inuu ku xad gudbo way nabiga wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi qofka muslimka waxa weeyaan qofka ay dadku ka nabad galaan gacantiisa iyo afkiisa marka arintaas waa taadi weeyaan shariicada islaamku ma ogola waxa way hatta yahuudiga aan markaa yani kula dagaalamayeen deegaanka ah waxa weeyaan diimiga ah iska deegaanka ah dawayn ila ilaaliyo islaamku wuxuu leeyahay xaqiisa ilaaliya in xaqiisa iska bada qof muslima yahuudiga oo ah qofka isugu nicamnahay maanta koonka saaran hadduu yahay qof deegaan ah oo maartay iska diimi ah oo ummadda islaamka ku hoos nool iyo dawladeeda wuxuu xaq u leeyahay in la ilaaliyo maalkiisa iyo naftiisa haddii aan isagu tacadi soo sameyn marka sidaa daraadeed runtii falka waanu cambaaraynayna waana ka xunnahay waana falfal xun oo burcadnimo ah dadkii falka galay maadaama bil ramadaan khayr lagu jiro wax u furan horta inay marka hore toobad keenaan oo Ilaahay soo noqday subhanahu wa ta'ala waxa ay geysteen inay hagaajiyaan oo waxa way hantida ay maartay ay baabiyeen inay maartay qiimaheedii inay cudurdaar ka bixiyaan qiimaheedii marka labaadna cudurdaar kaliya inaan noqon arintaas cidii ay ku aroorto oo waxa geysatay ay ku cadaato inay intay nool yihiin wax iska soo celiyaan mid kale qofku maartay hadduu qof wax ka dhaco kaliya waxa laga yaabaa in qofkaasi dib uga cafiyo ama suuq isaga maarayo laakiin sahanti shirkadeed oo ummadana islaamiga wada leedahay oo boqolaal oo kumanaana way ka sii culustahay way ka sii weyn tahay marka de waxa u furan marka dadkaas inay toobad keenaan Ilaahay soo noqday subhanahu wa ta'ala wixiina iska soo celiyaan dadkiina ay cafi weydiistaan iyo shirkadaha wax ka xumeeyeen arintaana aanay dib ugu noqon oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsadaan أنت سنكسو كوبيا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وضياشي أقوياء كتشوجب والسلام يا بعد السلام أيامها وعى عصب أرين بدقلية وحييليسا شركته سكارسين تلسوم هي سامتل إن وحليليو أرين تاسو أرين فالحماء annagu arinta fool xumaan u aragnaa haddaanu ay odayaasha iyo waxgaradka halkan fadhiya in wax la yeelo shirkadaha dadka u shaqeynaya ee biyo kama dhibcaanka waad ogtihiinoo maalintii dhaweed markii xawaalada la xidhay Nairobi xidhay 13 xawaaladooda ay xidhay Nairobi ilaa qorax ka soo bax ilaa qorax u dhac ayaa laga dareemay waayo wax dadku u baahan yahay bay ahayd qof waliba meeshiisa ka dareemay wixii bulshada wuxuu taraya ee maamulada wuxuu taraya ee cidina aanay ka maarmayn ee lagu nool yahay ee noloshiya
in wax la yeelo wiilal yaryar wax yeelaan oo dhulbaantaay ama cid kale ah aad iyo aad baanu arrintaa uga xunnahay hadday dhacdayna falkaa ciddii geysatay waa ku cambaaraynayna waana kaga soo horjeednaa waxaanu leenahay hantidaasi waa hanti dadweyne waa hanti loo baahan yahay waa hanti aan nina ka maarmi karin waa hanti eeyarogina waxtara maanta ciddii wax u geysataa waa cid dhabarkii ka jabisay dadka bulshadii dhabarkii ka jabisay ha ogaato hadday maamul tahay maamulada la sheeganayo iyo hadday cid kale tahay hantidaasi waa bareefad waa biyo kama dhibcaan dadkii bay u shaqaynaysaa waa hanti gaar loo leeyahay ninkii wax adyada u geystaa waxa weeye dadkii adhaxdu ka jabiyey waxay la tahay inuusan nina la qolaahayn ee uu nin walba gowracay waxaanu leenahay laga daayo nabadgelyadaa ku xumaanaysa reeraha la isaga hor imaan doonaa waayo hantidan dad baale oo reeraha leh oo dad ba isku darsaday annagu waxaanu leenahay arrintaasi nabadgelyada iyo noloshaba gef bay ku tahay waa ku gef ha laga daayo waa wax cid waliba u baahan tahay waa imkaaniyaadkii waa telefoonadii waa nalkii waa lacagtii iyo xawaaladihii annagu waxaanu leenahay yaa arrintaas yaan la siyaasadayn ha laga daayo nabadgelyada ha la ilaasho gaar ahaan dhacdooyinkan hawdka ka dhacaya ee haddeerto meelaha laga soo qaylinayo hawdkaa u badan dadka hawdka jooga ee dhulbaanti arrinta ha ilaaliyeen nabadgelyadeennaa ku jirta wanaaggeenaa ku jira nolosheennaa ku jira haddii aynu ilaashanno insha allah ilaahay baa inoo barakeeyey waa waxaayna sida waa waxaa lacagta aynu meel walba isugu dirayno waa waxaa yaroogiban aynunan ka maarmin daqiiqad annagu waxaanu leenahay arrintaasi waa foolxumo ha laga tanaasulo sidii shiikuba u sheegay waa burcadbadeednimo ha laga daayaanu leenahay waxaanu meesha la isugu yimi in laga hadlo dhacdada soo noqnoqotay ee 25kii bishii shanaad 2015 ka dhacday Yagoori 19kii bishii lixaadna ka dhacday Buuhoodle taasoo ahayd in isgaarsiinta Telesom iyo maxay Somtel alaabay leeyihiin oo la qaatay waxna la burburiyay shirkadahaasi marka la yiraahdo Somtel marka la yiraahdo Telesom anigu waxaan ka mid ahay dadka Telesom kule sheerka waan ka mid ahay waxaan leenahay 200 iyo something qof oo dadka ah ayaa shirkadan lascaarood sheerka ah anigu kuwaasaan ka mid ahay runtii waxa weeye waa wax laga xumaado dad hantidiis inta loo yimaado in wax yeelayo wixii wax yeelay waxaasi waxay ha ogaadeen inay hanti dad leeyahay waxay wax yeelayaan ay tahay tii hore ay geysteenna aanay ahayn mid la iskaga muxuu ahaay harayo cidii wax geysatayna la yaqaan nin kastoo meesha wax ka geystana la garanayo sabab baynu wax isugu geysano hantideena aynu isugu maartay goraya bahalayayno isugu waxaynan anu garan maayo dadkuna waxa wanaagsan bil Ramadaan baynu ku jiraa bil cibaadaynu ku jiraa in la nabadgeliyo nafta la isu nabadgeliyo hantida la isu nabadgeliyo xanta iyo xasarada la iska nabadgeliyo runtii ma aha wax la aqbali karo sidii odaygii iga horeeyay u sheegay waxaasi waana wax wiilal gaar ah sameynayaan iyagoo magac dad iyo magac urur ku adeeganaya waxaan leenahay magacyada ay ku adeeganayaan ururada ay ku adeeganayaan waa ka hadleen inaan iyagu arrintaasi arrin sax ahayn way ka hadleen madaxdoodu waxaan leenahay si cad madaxda qaarkood baan maqlaynaa oo shirkadaha waxa la yeelay si cad iyaguna weynay uga bixiyaan jawaab baan leenahay waxaan ku soo ururinayaa hantidaasi hanti dad weeye hanti dadkan dhulka jooga leeyihiin weeye dhowr boqol oo qof oo lascaano jooga wax ku leh waxaan leenahay war hantida iyo nafta iyo xoolahaba aan isu nabadgelino waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cuqaasha odayaasha iyo guddoonka Telesom iyo shaqaalaheedaba waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaan filayaa halkan waxa la isugu yimi hawsha ka dhacday deegaanka ahayd in waxyeelo loo geystay anteenooyinkii Telesom waanu ka xunnahay runtii dhammaantayo odayaasha ka hadlayay aad iyo aad ayaan uga xunnahay waana ka tacsiyadeynaa runtiina hawsha tani waxaan filayaa cid ku tashatay inay jirin taladaasna dad gaar ah ayaa iska leh dadka gaarkaana waxaan qabaa inaan cid loo saarin khaladka ay sameeyeen un cadaynteeda aanu ka hadalno waxaan qabaa anigu dadkaasi inay khalad sameeyeen ay ka noqdaan khaladka ay sameeyeen
ka bixiyaan apologies marka waxa weeyaan haddii dad khalad sameeyo oo la buuro dhibteeday leedahay waxaan qabaa dadkaasi dad ay waxaan filayaa in ku tashatay hanti dad leeyahay in wax la waxyeeleeyo sababtoo ah telesom ama telecommunicationka ina soo gaadhay faa'iidooyinka inoo keeneen waxaan filayaa waad ka warhaysaanoo anigu halkan waxaan uga tegey telefoon laasacanood intaan ka tegey baan dir dhaba waxaan u aaday inaan telefoon dirsado intaan sii socdayna xitaa hantidii aan haystay iyo dokumentigaygii iyo wixiiba waa lagaga xaday socodkaa dheer aan sii gelayay waxaana doonayaa inaan hadlo uunoo telefoon ku hadlo maantana waxaad ogtihiin oo waxaan filayaa faa'iidooyinka ay inoo keentay dee geelii baynu ku baadidoonanaa baadidoonka marka qofku baadidoon tegi jiray ee wax ka lumaan meel u dhaqaaqa ma lahayn qodadeeda hawd waxaa la yidhi markaanu nugaashaa wax nagaga lumaan wuxuu nin baa istaagay wuxuu yidhi oo maxaan baadidoonaa intaan ka dooni lahaaba waa ii muuqataaye hadda waxaa weeyaan telefoon buu qofka ku hadlaya hashiisii waxaa loogu sheegayaa waa faa'iidada ugu yar inta kalena waa dee kasii faa'iido badan tahay waa hanti dadweyne sheerleydaynu ku jiraa innagaa iskale dadka aan fahansanayn in hantidani dadka ka dhaxaysa cid gaari leedahayna waxaan filayaa odayaashoo dhan way taabteenoo dadku waa wada leeyahay cid kastaa ku jirta reerkaa ku jira waxaa laga yaabaa walaalkaa aadan u warhaynin inuu ku jiro dadka gubaya laftooda in walaaladooda ku jiraan baa dhici karta waxaan qabaa anigu arrintaasi arrin saxa ma ahayn arrin khalada weeye waxaan leeyahay arrintaas ha laga fiirsado dibna yay u dhicin tii hore dhacdayna sidii ragga qaarkii uga tacsiyadeynayay in laga tacsiyadeeyo wixii dee dheeraad ahee ka jirana in wada hadal lagu dhammeeyo odayaasha iyo marti sharafta halkan timi waa salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan leeyahay marka labaad shirkadda telesom kolley waxaan maaya nin loo tilmaami maayo khadamaadka iyo waxtarka ay bulshada u hayso miyi iyo magaalaba sidii hadda caqalkii halkan joogay ka warbixiyey xoolihiibaa dee markay lumaan lagu baadi doonaya ilaa habartii miyiga joogtay ilaa odaygii ilaa kii ceelka ayaa manfaceedii iyo faa'iidadeedii helay taa hadda waxba ku dheeraan maayo waxqabadka ay bulshada ugu fadhido mar labaad waxaan leeyahay haddaanu anagu mulkiilayaasha iyo sheerleyda shirkadda telesom marnaba anagu ma cafin doono dadkii falkaa foosha xun ku fuliyey shirkadda ee agabkeedii iyo alaabteedii baabi'iyey ee burburiyey waxaanuma iyagana macnaa usoo kordhin mayso annaga iyagana qaan bay ku noqoto annagoo kolley niman ka hadhaya ama cafinaya ama deynaya haddaanu dadkii hantidaa iska lahaa marnaba ma nihin waxba hadalka badin maayo intaasaan kusoo ururaya wasalaamu calaykum alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam madaxda shirkadda telesom madaxda dhaqanka dadweynaha kale ee meesha isugu yimi intaba waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib hadda hawshan aynu halkan isugu nimi ee ah dhibaatooyinkii la gaarsiiyey labada shirkadood ee telesom iyo somtel xaqiiqiyan anigu tafsiir aan ku bixin karo hanti dad muslimiinihi leeyihiin oo intay isaga yimaadaan ay dab sudhaan ama ay qaar qaataan micna hadda iyo tafsiir anigu aan ka tafsiiri karo anigu ma garanayo umana malayn maayo dad ahlul caqliyah oo mas-uuliyiinah in iyagana ay macno u samaynayso sababtoo ah waxa weeye dadka hadda gubaya ee qalabka shirkadda gubaya ee dadka muslimiinta iyadoo bishaa rabadaan lagu jiro dhexdeeda ninna ma jecla in gurigiisii oo nabad u ahaa saaka in inta dad kale u yimaadaan gurigiisii oo carruurtii ugu dhex jirto oo hantidiisii taallo in dad kale ay dab sudhaan qofka muslimkana waxaa looga baahan yahay waxa aad adigu jeclaan lahayd in lagula macaamilo dadka kale ee muslimiinta ee walaalahaaya inaad kula macaamishid waxaan leeyahay dadkaasi sida dee hadda anigu waa dhegaystay wasiirka arrimaha gudaha wax loo nisbayn karo maamul u malayn maayo inay tahay sababtoo ah wasiirka arrimaha gudaha waa dhegaystay anigu waana daawaday filinkii uu munaasabadda uu kaga hadlay waxaan leeyahay dadka kale ee hawshaa galay aakhirana idinma wanaagsana adduunkana idinma wanaagsana
آخرنا إذن ما وناكسنا أو ضد مسلمين بعد أن تدودي كحد قدبتين لباتو قيستين قبتين الدون كنا إذن ما وناكسنا أو دوا ضد أتكون كدوشي سوى دسارتهين هذا سجارنا إنسان أتكو حساب تميسا وحلاها مركا بالرمضان بالوجود شراء إلهي سبحانه وتعالى كبقى إلهي وطوبت كان لباتدي دتك مسلمين تا ولا لهينا أدو جيستين وأنا قرنين وح الله له دي هذا اللي يدين كان اللي يراد ورمحاد وجبتين واحد تفسير أتكو بحكرتان أنا قرنين أنا أقول لسعنود بانو تشوقنا شركة تلسوم مقالة وذا تشوقنا وحبا يراته هرمر يا أذيك يا فائدة وحان أهين وبالشدة كسو سياسيين موجين هديب الله أرى لها دتك كلمة الله يرى راسي وحي كلمة هذا يسحلير موضلي ستان موضلي أي ستان إن يكون هاللان أو يكون شقيستان أو أي دنا هذا إياه الله هذا كوكب صدان بيوبه هي إن أتصحلير أنت تكتم الدين dad kale oo magaalada kala jooga oo horufadhi iyo banyaal iyo jooga oo dad muslimiina oo adeega aad u baahan tahay dhigiisa u baahan inaad adiguna kaadigi deysatid oo aad ka timaadid iyagana koodii aad soo aamusisid iyada qudheedu waa qof wax u baahan inuu dib isugu noqdo waxaan ku soo koobayaa dadka dhibaatada geystay waa dad la garanayo iyaguna isgaranaya bil rabadaad baa lagu jiraa إلهي سبحانه وتعالى ضدك مسلمين تاهي دحوة إنه يستلميان والحرمي وحي قرب لقاتنا هل السعودية وحي لقبينه ضدكاسي انت إلهي سبحانه وتعالى جيرودو قور وإيمان يسوه اسمعوك انت ينجيريو إيمان لباتدا اي جيستين ضدك ايو جيستين اما هكاحل عشدين اما سيدي اي لباتدا اي جيستين اي وقتو بتكين هايين فلان كذا قبتين حتى ضدكم اسكما سارة وأفراد وي وحن كلت لين لها قفك إلهي الرميي والرسول كسر الرميي وظلم ومفعنا بالرمضان باللغو ترى هلا توبت كان وحبس صوبا صوما كوتر ما يضد مسلمين وانت تدودي ضبكو قبطي صوم كاغي وحبا كوتر ما يظلم وين بد كجرتا وحن مر لباد iyo mar saddexaad ku soo celinaya dulmigu ma fiicna ilaahay loo soo noqdo dadkaas dhibaatada geystana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u soo noqdeen laakiin waa in laga fiirsadaa arinta iyada ay wixii la mid ah waayo wax dad gaar leeyahay cid geysatana waa cid iyada khaas ku noqonaysa ku arkayay gurigii lagu baa hay arkayay marka mar hadii gurigii lagu beeday wixii hoos lagu xanfilayaa inay baxsan marka arinta iyada laga waantoobo cidii xoolaha wax ku lahaydna waa ku tacsiyeena kullay meel been ugu arooriyaan cidii falka geysatay bay xoolahaas raaci doonaan bishan waa bil Ramadaan waa bil la doonayo in khayraadka la badsado in aynu isu nimaadno qadeeda caynkaas oo kala ka wada hadallo way fiican tahay tan hadda la sheegayaana de waxaan la filayn weeye waxa soo kala raganimo maaha wax dad qabiilo sheeganaya ama dadnimo sheeganaya ama xusbi sheeganaya ay sameeyaan maaha dadka wax garadka ah isugu yimi uqaasha iyo madaxda Telesom iyo marka hore waxaan idinku salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxaan u malaynayaa meesha waxa la isugu yimi kii ka hadlay iyo ka ku aamusanba dhibaatadii ka dhacday shirkaddan Telesom barayfidka ah yuumba saaka halkan la isugu yimi walba halkiisa ay ka taabatay oo geela iyo ariga iyo kii tulidi kaluntay iyo kii wax gaarin isgaarsiin kala aanay jirin oo maalinta ay dansan tahay dadku wada dhagala iyo hadoo dhibaato ay ku soo korodhay tahay waxaan u leenahay marka raalina kama nihin muslimnimana maaha anigu bil Ramadaan ama hal lagu jiro ama xash hal la dul taagnaade waxaan leeyahay wixii dadka ku soo noqonaya nin walba waa la garanaya inta saaka halka joogtaana waa in dhul bahantaa oo isugu wada timo mid hantida le iyo mid gurigiisii la tagay iyo mid dhibaatada soo socota ka damqanaya weeyi hanti waaba la helaa laakiin dhibaatada ka soo socota nin waliba ka damqaday على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلوات الله والسلام عليه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn Allah ayaa mahad iskale Allah isugu keenay madashan marlabaadka waxaan u mahad celinayaa odayada dhaqanka culimaa u diinka waxgaradka aqoon-yahanka iyo dhammaan bulshada ka soo qayb gashay shirkan waxa dhammaanteen ina soo wada dhaqaajiyay oo halkan ina keenay dareen adag oo runtii aynu dareenay dhammaanteena aynu ka wada gilgilanay ayaa halkan ina keenay dareenkaas oo ahaa laba dhacdo oo kala dhacay 25kii bisha shanaad iyo 19kii bisha lixaad oo ka kala dhacay Yagoori Horfadhi iyo Banyaal barnaamijkaas oo ahaa in xarumo shirkadda Telesom leedahay Yagoori oo kale muddo fara badan ay fadhiday oo dadka adeegii ay waayeen waxaan leenahay hantidani anigoo ku hadlaya gudoomiyaha shirkadda anigoo ku hadlaya sheereydii waxaan leenahay hantidani waa hanti dad Soomaaliyeed leeyahay waa hanti ay qayb ka yihiin dad fara badan oo deegaanka u dhashay oo ilaa 200 kor u dhaafaya waxaan leenahay hantidaas cidday naga gashayna waanu naqaanaa waanu garananaa waanu ognahay nagagana baaqan mayso adduun iyo aakhiro toona insha Allah taala marka waxaan leenahay waxaasi way dhaceen hadeer wixii hore ee dhacay sida odayada hore sheegeen in laga bixiyo wadada ay ahaan jirtay ama toobadkeed ha noqoto ama cafis ha noqoto sidii la arki jiray inay u maraan dadka dambiga galay wax dambena aanay geysan shirkaduna runtii gobolka horumar badan bay ka qabatay lama soo koobi karo waxyaalaha shirkadu qabatay